kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada ay nagala socotaa meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta dhexe aanu ku leenahay magaalada Nairobi waxaan idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isku diyaarinaya inay maalmaha soo socda ay doortaan gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda kadib markii uu iscasilay maxamed sheekh cismaan jawaari oo isaga ahaa gudoomiyihii hore aqalka baarlamaanka hoose ee Soomaaliya jagadan ayaa waxaa isku soo taagay mas'uuliyiin fara badan kuwaasi oo u taagan in ay qabtaan xilkaasi iyagoo sheegay in ay doonayaan inay wax badan ka bedelaan hanaanka uu shaqeeya baarlamaanka dalka dadka u taagan waxaa kamid ah xubno kamid ah golihii wasiirada oo iyaga soo baneeyay xubintii ay ka hayeen golaha fulinta gaar ahaan xukuumadda Soomaaliya golaha xukuumadda dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn u dhowraya isbedelka xigi doona dhinaca doorashada iyadoo mudanayaashan doonaya inay kursigaasi u tartamaan oo qiimo bixinayo 15,000 oo lacagta dollarka Mareykanka lacagtaasi oo ujeedadu tahay sida guddiga doorashada ee aqalka hoose ee baarlamaanku ay sheegeen mid lagu shubayo bangiga dhexe ee dawladda Soomaaliya isla markaana ciddii guuleysatay iyo kii aan guuleysanba aanu noqonayn mid lacagtaasi u soo noqota kursigan ayaa waxa uu tartamaya xubno fara badan kuwaasi oo mid kasta uu ka codsanayo mudanayaasha baarlamaanka in uu siiyo codkooda waxaana dhinacyada u cadcad kamid ah wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliya oo maanta sheegay inuu iscasilay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya sababta mudanayaasha intaan la eg oo fara badan ay ugu tartamayaan kursigaasi waxa meesha ka baxay dood taagneyd oo ah in beel kaliya oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ay isku soo sharaxi karaan kursigaas iyadoo guddiga doorashada warar hoose oo la helay tilmaamayaan in ciddii danaynayso oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka ay isku soo sharaxi karto kursigaasi laakiin marka loo eego hanaanka nidaamka ku saleysan beel qaybsiga ee jamhuuriyadda ayaa waxa uu banaynayaa in kuraasta 4.5 loo qaybsado sida mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka hore loogu soo doortay xubnaha qaar oo warbaahinta la hadlay u taagan kursigan oo musharaxiinta waxay tilmaamayaan in haddii la doorto ay wax weyn bedeli karaan marka loo yimaado sida baarlamaanka uu shaqeeyo iyo waliba qaybaha kala duwan ee sharciyada baarlamaanka la doonayo inuu meel mariyo xubno kamid ah dadka is soo sharaxay ee kursigaasi naawilaya waxay tilmaamayaan in haddii la doorto ay ilaalin doonaan waa sida ay hadalka u dhigeen madax banaanida baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay la xaliyay khilaaf muddo soo jeetamay oo u dhaxeeyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo waliba mooshin la sheegay xildhibaanadu inay keeneen kaasi oo la aaminsanaa sida dadka qaar ba ay falanqeynayeen arrimaha siyaasadda Soomaaliyana si weyn ula socda in ay gadaal ka reexayso mooshinkaasi xukuumadda laakiin hadda waxa la isweydiin karaa haddii gudoomiye cusub ee baarlamaanka Soomaaliya uu doorto maxaa xigi doono isbedel oo imaan kara khilaafaadkii hore u imaanayana meesha ma ka baxsan yihiin mudanayaasha cusub ee kursigaasi iminka naawilayana suuragal ma tahay in arrimihii hore muddada u soo jeetamaya ee khilaafkii muuqanaya meesha qudhooda ay ka saaraan haddii mid kamid ah sida ujeedadu tahay uu guuleysto waxaase dad fara badan ay isweydiin karaan mas'uuliyiintan oo hadaladooda ay yihiin kuwa macmacaan waxa ay soo kordhin karaan haddaba qaar kamid ah musharaxiinta oo khudbado jeediyay isla markaana shirar jaraa'id qabtay qaarkood codadkooda aynu daawano waan isugu soo laaban doonaa dooda caawa ee barnaamijka bandhiga bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah allahumma salli wa sallim wa baarik calaa nabiyina Muhammad waxaan u soo istaagay inaan caddeeyo inaan u taaganahay qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo banaanaaday laguna tala jiro doorashadiisa in muxuu ahaa la qabto muddo dhow aniga waxa la yiraahdaa Ibraahim Isaaq Yarow waxaan ka tirsanahay golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaan ka tirsanahay waxaan kaloo ka tirsanay golaha xukuumadda ayaan ka tirsanaa waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka boostada iyo isgaarsiinta ayaan ahaa kaas oo muxuu ahaa aan iska casilay saaka
iyadoo sababtuna ay tahay shuruudaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ay muxuu ahaa ku jirtay in xildhibaanka u tartamaya uu xilka uu hayo xagga iska dhigo. aniga waxaan u hoggaansamay dhammaan shuruudihii ay dejiyeen guddiga qabanqaabada doorashada baarlamaanka, dhammaantoodna waan buuxiyey. waxaana ku faraxsanahay in shuruudihii aan buuxiyey diiwaangelintii ay iga aqbaleen ina guddoonsiiyeen shahaadadii musharaxnimo ee aan ugu tartami lahaa qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka. sidoo kale warqadayda istiqaalada si sharciyan u qoray, ra-iisul wasaarahan ku socodsiiyey, broseskii loo baahnaa baan mariyey, xafiiskiisaa laga diiwaangeliyey, guddigana way qabteen waana aqbaleen. sidaas daraaddeed waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa inaan u taaganahay buuxinta xilkaas oo ah runtii xil aad iyo aad u culus, muhiimna u ah qarannimada Soomaaliya, muhiim u ah matalaadda shacabka Soomaaliyeed, muhiim u ah hirgelinta iyo ilaalinta shuruucda dalka, muhiim u ah hanaanka dowladnimo iyo aasaaska dhismaha qarannimada Soomaaliyeed oo sii kobcaysa, muhiim u ah. aniga oo ku kalsoon aqoontayda iyo waaye aragnimadayda aan u leeyahay howlaha ama shaqooyinka golaha shacabka ama waajibaadka golaha shacabka uu u hayo ummadda Soomaaliyeed. aniga waxaan ahay xildhibaan baarlamaanka ka tirsan soona galay sanadii 2000 oo muxuu ahay weli aan ka bixin oo guddiyadiisa kala duwan ka shaqeeyey, golaha xukuumadda muddo 10 sanadood ka badan ka shaqeeyey, oo baarlamaanka howlihiisa khibrad badan u leh. maanta waxa weeye 18 sanadood iyo wax la jira ayaan ku jiraa golaha shacabka. intaas howlo yar ma ahayn, khibrad yar ma ahayn, muddo kooban oo yarna ma aha. anigu maalintaas waxaan jiray inta u dhaxaysa 27 iyo 28 sano ayaan jiray. maantana waxaan jiraa inta u dhaxaysa 45 jir iyo 46 jir baan u dhaxeeya. waa da'da muxuu ahay mas'uuliyadda ugu adag oo ugu muhiimsan lagu aamino qofka ruuxa bani aadanka ah. anigoo ah xildhibaan maxamuud macalin yaxye kana mid ah golaha shacabka, waxaan ummadda Soomaaliyeed xubnaha golaha shacabka si xushmad leh ula socodsiinayaa inaan isku soo taagay jagada guddoomiyaha golaha shacabka kadib markii ay ii soo jeediyeen xildhibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka lana tashaday bulshada qaybaheeda kala duwan. sababaha aan xilkaa isugu soo sharaxay ayaa waxaa ka mid ah khibradda shakhsiyadeed ee ku aadan shaqada golaha shacabka, anoo ka tirsanaa golaha ku dhowaad 10 sano, xubinna ka ahaa guddiga joogtada golaha shacabka oo maamulo golaha, sidoo kale wasiirna ka ahaa ee xukuumadihii dalka soo maray. waxaan hiigsanayaa inaan wax ku soo kordhiyo golaha shacabka. ololaha doorashadaydu waxaa halbeeg u ah ama halkudhig u ah dib u habayn iyo dardargelin howlaha dib u dhiska hay-adaha dowladda. aynu gacan ku siin doonno hay-adaha quseeye shuruucda dalka lagu horumarinayo. 2 diyaarinta shuruucdii dalka u horseedi lahayd doorashooyin xalaal ah oo daahafuran inay ka dhacaan dalka. arrimaha mudnaanta leh iyo isbedelada aan golaha shacabka ku soo biirin doono waxaan ku sheegi doonaa khudbadaha aan ka hor jeedin doono haddii eebbe edmo mudanayaasha golaha shacabka hortooda. sidoo kale
waxaan soo bandhigi doonaa ayagoo qoraal ah iyo barnaamijyada kale aan qaban doono ayaan ku soo bandhigi doonaa. Cabdicasiis Xasan Maxamed lafti gareen kana mid ah xubnaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka haddii alla idmo. ugu horeyn waxaan halkan ugu mahadcelinayaa xildhibaanadii igula taliyay fikirka ah inaan isu soo sharaxo xilka gudoomiyaha golaha shacabka iyo mudanayaalkii kale ee xildhibaanada ee igu taageeray iguna dhiirigeliyay fikirka iyo tala soo jeedinta xildhibaanadii hore in aan ku sii dhiirado xilqabashada gudoomiyaha golaha shacabka. kadib markaan darsay kana baaraandegay tala soo jeedinta saaxiibadayda igula jira golaha iyo dhiirigelintooda ku aadan qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka, waxaan go'aansaday in aan isku soo sharaxo xilka gudoomiyaha golaha shacabka oo uu tiradiisa guud tahay 276 xildhibaan. golaha shacabka wuxuu yeeshaa sanadkiiba 2 kal fadhi iyo fadhiyadiisa caadiga ah iyo kuwa aan caadi ahayn. waqtiga xaadirkan waxaa bilow ah kal fadhigii saddexaad ee golaha shacabka sanadka 2018 uu yeelanayo 2 kal fadhi. sideedaba gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu gudoomiyaa wax kasta oo uu golaha isku raaco ee wax aan jeebkayga ku wato ama aan la ii soo dhiibay ma noqon doonaan. sidaa daraaddeed dhammaan saxaafadda ka soo qayb gashay kulankan waxaan idinkugu caddaynayaa in aan ahay musharax u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. idinkoo aada u mahadsan. khudbadayda iyo faahfaahinta intaa ka badan waxaan ka horjeedin doonaa mudanayaasha golaha shacabka hortooda marka ay guddiga doorashada gudoomiyaha golaha shacabka waqtigooda sheegaan haddii alla idmo. gabagabadii hadalkayga maanta wuxuu ku kooban yahay in aan caddeeyo in aan ahay musharax u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka keliya. waxaan ahay mideeye aan kala qaybin doonin xildhibaanada golaha shacabka, ilaalinta midnimada guud ee golaha. waxaan ahay garaad shir gudoomiye kaliya ee aan xilka ku gorgortamayn waxna ku goosan doonin aniga ii gaar ah. waxaan ahay nin ku fiican la tashiga, sidaa daraaddeed xildhibaanada haddii ay codkooda isiiyaan ma noqon doono nin u talinaya ee waan la tashan doonaa mar walba. waxaan ahay nin difaaci doono go-aanada xildhibaanada golaha shacabka ay ku gaaraan mar walba, soona dhoweyn doono go-aanada anigoo aanan ku dhibaynin mas-uuliyadda marka ay ii dhiibtaan oo ay iga aqbalaan codsiga aan la hortegi doono haddii alla idmo. waxaan fursaddan maanta uga faa'iideysanayaa inaan halkan uga mahadceliyo guddoomiyihii xilka iska casilay mudane maxamed sheekh cismaan jawaari oo meel wanaagsan soo gaarsiiyey muddadii uu xilka guddoomiyaha golaha shacabka uu hayay. sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo go-aanadii ay soo saareen guddiga doorashooyinka guddoomiyaha golaha shacabka siday u dhan yihiin waa aqbalay. waxaana ka mid ahaa go-aanadii ay soo saareen ninka musharaxa guddoomiyaha golaha shacabka noqonayo waa inuusan xilka kale uu hayo uu iska casilaa. sidaa daraaddeed laga bilaabo maanta waxaan iska casilay xilkii wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sidii ay sheegeen go-aankii ahaa guddiga doorashooyinka. waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa wasiiradii ila soo shaqeeyey, shaqaalihii ila soo shaqeeyey, prime ministerkii i magacaabay, intaba waa mahadsan yihiin. wabilaahi towfiiq. xildhibaan professor Saalim Ali Ibrow, waxaan maanta ay taariikh u tahay 18 Abriil 2018 aan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo xildhibaanada golaha shacabka aan u sheego inaan musharax u ahay jagada guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka haddii ilaahay ana aaminsan inaanay khibrad waayo-aragnimo
iyo howlkarnimo aan kusoo bixi karo hawshaan baarlamaanka waa la socotaan duruufta hadda maraaya dhibaatooyin badan iska jiro waxaan aaminsanahay inaan baarlamaanka hadday boob dhexda ku jiro aan dhayi karo isku keeni karo kalsoonida kasbi karo waxaan kuna aaminsanahay inaan xooji karo wada shaqeynta golaha sharci dejinta iyo golaha fulinta haddii yidhahdo waa middaas mid maanta u baahan nahay waddanka dhibaato ku jiro howlo badan baarlamaanka horyaal aan rabaa inaan fududayno si anakoo wada dhan hay-adaha sharci dejinta golaha fulinta iyo golaha garsoorka anakoo iskaashinayn in aan gaarno 2021 higsiga ahaa cod iyo qof in la gaarsiiyo haddii ilaahaymo oo markaasoo dastuurkana cod la keliyo haddii ilaahaymo waxaan ahaan jiray aniga bare jaamacadda gaheer intaan burburka dhicin waxaan naasib yeeshay in ardaydii aan macallin ahaan jiray maanta bada jawooyin waaweyn ku hayan waddanka qaar soo qabteen qaar weli oo ila siyaasad isku jirno qaar ila tartamaa weli jiraan taasna yeeshay taas waxaan ku keenay dadaalka aan dadaalay ilaahlimada waddankan ku soo dhaq ee kamid aan ku socdo waxaan waddankan ka soo noqday wasaar ku xigeen iyo wasaaradda maaliyadda waxaan ku samri wasaar ka soo noqday markii kala guurkii wasaar cali maxamed geede iyo nuur cadde aan wasaar waddanku ahaa waqti xun ugu jiray karteedii iyo caqligay iyo khibradeyda ayaa ku soo wada gudbay waxaan xuman karaa jawooyin kala duwan yaan soo qabtay dowladaha ku maalgaarka ah wasaar ku xigeen iyo wasaarooyin badan maaliyadda xanaanada xoolaha idaara tacliinta sare kumeelgaarn waxaan shaqadii shaqaalahay waxaan kaloo markii kumeelgaarka laga bax nasiib u yeeshay inaan xubin ka noqdo golaha wasiirada madaxweyne xasan sheekh oo wasaarka ahaa mudane cabdullahi sheekh axmed wasiirka xanaanada xoolaha maanta aan idin hadlaayo xukuumadda dowladda jirta oo madaxweyne ka yahay mudane maxamedullah farmaajo wasaarkii xasan alkheyre waxaan ka ahay wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha halahaas jagooyin aan soo qabtay waxaan ku mutaystay ilaahnimadeyda karteedii iyo aqligay iyo soomaalida ay u go-an tahay in waddanka hunguriyo waa qiyaas karaysaan 30 sano 40 sano ku jiray calimahaada wasiirka ahaan jiray dowlad calimahaada waxaan ku jiri jiray guddiga sulax waagaas xamara wareegi jiray guddiga sulax ku jiri jiray aan kasoo bilaabo markaas anoo dhalinyaro aqoon-yahan ah iidaan soo gaarsiiyey marka waxaan qiyaasaa booskan muhimis uley oo hadda baneeyay weli barsoon maxamed shosmaan jawaari oo baarlamaanka gaarsiiy heer maanta heerka tale gaarsiiyey inaan ahay qofka howsha meesha u dhig ka wada kara aan isku haystaa ilaa markhaati ah soomaali markhaati ah haddii la tixgelinayo aqoonta khibradda waxaa kaloo intaas ii raacdo inaan ka soo jeedo ku soo barbaari qoys ka shaqaynaya isku xinta ummadda maslaxada ka horumarinaya danta gaarka danta guud taasoo ah saldanad aan ka soo jeedo taasoo dadku hayso taas waxay xaqiijinaysaa in aniga iga go-an tahay in kaalintan baarlamaanka sharci oo leeyahay inaan si fiican u fuliyo danta weligay danta guud aan ka hormariyo danta gaarka mar haddii dan guud laga shaqeyna xog fuday noqonaya marka waxaan ka codsadaa xildhibaanadaydu inay igu taageeraan codka igu aaminaan jagadan oo muhiimaddaas leh si ummadda soomaaliya duruufta ay ku jirto aan iskaashino ka wada bixinteeda anagoo kaashanayno golayaasha kale anagoo kaashanayno baarlamaha iskaashanayno golaha shacbiga aqalka sare anagoo kaashanayno sharci dejinta iyo garsoorka anagoo madaysan aan isku mabda nahay isxambaarsan in aan ka bixin duruuf la gaaro waddanka u noqdo waddan siyaasaan u dego waddan howliis xukuumadda dowladda u qabato in noqdo haddii ilaahay dulmi iyo waxaas laga ilaaliyo waa tahay daawadayaal waxuu ahaa kaasi xildhibaan saalin caliyow ibrow oo ah wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta oo u dambeeyey codad ama muuqaalo aan idiin baahinay oo ahaa shirar jaraa'id oo ay qabteen qaar ka mid ah xubnaha isku soo sharaxay kursiga guddoonka golaha baarlamanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda soomaaliya oo la filayo in maalmaha soo socda sida la qorsheynayana ay tahay 30 bishan in lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya sida ka muuqatay qaar ka mid ah sharaxiintii hadda waxa ay sheegeen inay himilooyin wanaagsan leeyihiin oo ay doonayaan isbedel dhaba in baarlamanka dhexdiisa ay ka keenaan
laakiin waxaa isweydiintu ay tahay baarlamanka hogaamiye noocee ah ayuu dooran doonaa maxaase ka jira hadallada qaar ka mida musharaxiintan ay sheegayaan oo ah inay doonayaan inay baarlamanka mideeyaan waxaa imaan doonta su-aal ah baarlamanka miyuu kala qaybsan yahay hogaamiyaha yimaado ee baarlamanka afhayeen u noqon doona ee lasoo doorto hogaamiye noocee ayuu noqon doonaa shaqada hortaallana maxay noqon doontaa marka loo eego sida baarlamanka hadda uu ku shaqeeyo waxaa sidoo kale la isweydiin karaa su-aalo fara badan oo imaan kara oo ah sida ay u wada shaqayn karaan dhinaca fulinta oo la sheegay in guddoomiyihii horeba caqabad uu kula kulmay ilaa ama la xaqiijiyey dadka qaar falanqayntooda in kursigii uu hayo uu isaga casilo arrimahaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa oo weliba isweydiinta aadka ugu muhiimsani ay tahay guddoomiyaha la doorto ilaa intee sane ayuu joogi doonaa amaba uu shaqayn doonaa suuragalse ma tahay isagoo aan wax caqabada la kulmin in waqtiga uu doonayo in baarlamanka uu hogaamiye sharcigana uu siinayo uu dhamaysto bandhiga s t n ayaan caawa ku falanqayn doonaa su-aalahaasi iyo kuwo kale oo la halmaala waxaa barnaamijka iigu martiya salmaan saciid oo isaga ah nin dhallinyaro ah islamarkaana cilmiga social scienceska ka bartay jaamacadda m k u ee fadhigeedu yahay magaalada nairobi islamarkaana si weyn u falanqeeya xaaladda siyaasadda soomaaliya africa iyo guud ahaanba wadamada islaamka salmaan stuudiyaha ayuu iminka igula sugan yahay waxaa dhinaca kale barnaamijka ila falanqeyn doona stuudiyaha igula sugan cabdiraxmaan diini oo isaga ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida islamarkaana muddo 10 sano ah ka shaqaynayay warbaahinta maxalliga ee gudaha dalka islamarkaana wax ka bartay jaamacadda bariga africa labadaba stuudiyaha ayay iminka igula sugan yihiin oo barnaamijka ay igala falanqeynayaan aad baan u jecelahay s t n iyo barnaamijka bandhiga inaad igu soo dhaweyn maadsantahay watahay cabdiraxmaan diin aan kugu bilaabo adiga baarlamanka soomaaliya aqalka hoose weliba waxa uu madlan yahay in dhowaan uu doorto afhayeen cusub oo bedeli lahaa booskii uu baneeyey guddoomiyihii jawaari sida ay wax u socdaan iyo xaaladda iminka sida ay tahay guud ahaan maxaa kuu muuqanaya waanu ku mahad celinayaa sida quruxda badan oo aad noogu casuumtay barnaamijkan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maamulka telefishinka s t n sida aan la soconno doorashada guddoomiyaha baarlamaanka hadda qabaqaabadeeda lagu jiro inta badan musharaxiinta xildhibaanada qaar ka tirsan ay ku shaaciyeen inay diyaar u yihiin inay xilkaas qabtaan iyo qaar ka mid ah wasiirada oo weliba xilkooda iska casilay aniga doorashadan waxaan dhihi lahaa waa doorasho danaysan marka aan saa dhahayo waxaan ula jeedaa guddoomiyihii baarlamaankii hore professor jawaari maxamed cismaan jawaari isagoo aanan xilka laga qaadin oo aan la marin baarlamaanka codkii la rabay in si maxaan ku dhaha sanduuq ah loogu qaado kalsoonida lagu laabto iyadoo aysan dhicin oo aan sharciga dastuurka la marinayo waxaa lagu cadaadiyey in uu xilka iska casilo waan ogtahay baarlamaankii qaar ka mid ah oo kasoo horjeestay guddoomiyaha hore professor maxamed sheekh cismaan jawaari si toos ah oo public ay miidiya u yimaadeen ayna dhaheen iska casil annaga kulama shaqeynayno marka aniga waxaan kusoo koobayaa doorashadan waa doorasho danaysan waxaana inta badan xoogga saaraya xukuumadda oo ay wada shaqeyntii ka xumaatay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka haddana ay doonayaan guddoomiye baarlamaan ay rabaan in nala shaqeeyaan howlaha xukuumaddana lagu sii fuliyo sidaasna howlaha usii socdaan aad iyo aad salmaan markaan dhinacaada imaado siday u socdaan xanaankan qabanqaabada doorashada iyo weliba in guddiga doorashada ee guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya ee baarlamanku iska soo dhagax magacaabeen ay sheegeen xubintii doonaysa inay u tartanto kursigan islamarkaana ka tirsan golaha wasiirada waa inuu soo baneeyo jegadiisa oo ay muuqanayso xubno ka mid a golaha xukuumadda ka tirsanaa inay soo baneeyeen oo ay si cad u sheegeen inay musharaxiin yihiin oo ka mid yahay wasiirkii gaashaandhigga soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta is casilay arrimahan markii la eego sawir noocee baa muuqanaya loola nooceesa la filan karaa ku salaamaya adiga iyo howlwadeenada t v runtii waxaan rabaa inaan wax yar aan ku bilaabo hay-adda baarlamanku waa hay-adda ama hay-adda sharci dejinta qaranka waxaa weeye hay-adda ugu sarreysa ee dalka marka kursiga ka bannaan oo ah afhayeenka baarlamanka waxaa weeye jagooyinka ugu sarreeya waddanka mid ka mid a wey marka saameyn siyaasadeed bay leedahay haddana wax yar aan isxasuusinana xaaladdan hadda sanadkan lagu jiro waxaa la filayaa in baarlaman xubin kasta oo baarlaman ka tirsan inuu xisbi ku biiro waa shardigii waxyaalihii laga dhaxlay madashii
go-aanadii madasha laga dhaxlay waxaa ka mid ahaa in labadan sano gudahood mid kasta xildhibaan kasta uu ku biiro xisbi marka way noqon kartaa sheeko weli dhiman qaybteedii hore inaan daawanayna hadda oo xisbi soo socda in guddoomiyihiisa uu keensaday way noqon kartaa laakiin hadda waxay u eg tahay generally hay-addaas in ay hesho yani isheg afhayeen yani waxay uga dhigan tahay siyaasadda soomaaliya arrin runtii gaar ah sababtoo ah guddoomiye jawaari oo ah runtii anigu dadka waxaan ahay guddoomiye jawaari 6 sano uu hayay marka la eego 6 sano ka horeysay jawaari baarlamaanka soomaaliya oo ka iyo sidii jawaari markuu joogay oo ka okay khaladaad sameeyay markii u dambeysay oo de bini aadamku siisa meel haduu ku daaho xoloo tagaa marka u dambaysa goldolooladiisa laakiin baarlamaankii qaybtii baydhabo iyo qaybtii muqdisho habal isdagaale laakiin sal looma kala go'sanayn marka waxaan u arkaa hadalka baarlamaankan mideynaya yani hadal waxaan markaa runtii iska bahalkii ah oo baarlamaanku khilaaf soo kala dhex galo oo shardi ahaat hal wada shaqeeyo xeerasaadka lagu wada shaqeeyo laakiin baarlamaan hal gaari wada saaran waxaan maayaa inaan sugeyn meesha aan joogo laakiin maba ahaba laakiin Salman marka loo yimaado dooda ah tartan noocee ah baa la filan karaa marka la eego dadkan is soo sharaxay ee doonaya kursigaasi inuu baratamaan maxaa muuqan karaa isleedahay tartanka la filan karo sida loogu qanci karo dhinacyada hadallada ay jeedinayaan macmaan hadhow maxaa laga filan karaa ugu dambeyntii marka natiijada lagu dhawaaqay doorashada dadka galaya sida ay noqon doonto intaba lama saadaalin karo wax la saadaalin karo sababtoo ah qaabka siyaasadeena ay u samaysan tahay ma ahan hadda hadduu xisbi uu ahaan lahaa aqlabiyada hadduu baarlamaanka haysan lahaa waan sii sheegnay ninka noqonaya soo bixi kara wasiirada badan isma yacsilan dabcan waqti marka yani laakiin waxay siyaasadda Soomaaliya qaabka u dhisan tahay qaabkan 4.5 qof kasta uu guriga gelinay wuxuu leeyahay qof kasta ugu yaraan reerkaagina wad wadataa reer kale dad kale la qabtaa waqti marka nin kasta raja qabta hala yaabin inay aad isku wada casilayo sababtoo ah nin kasta wuxuu leeyahay Chinese yani Chinese aan xumayn baad haysataa marka okay xukuumadana saameyn ku yeelanaysa dabcan marka intaas wasiir ay taasisho awal horena xilalka ay banaanayeen dabcan xukuumadda wax ku furmayso inay mar labaad isku shaandhayso oo ama dib loogu laabto laakiin hadda waxaan sugaynaa kow horta in qofka soo baxay hadda ma sahlana in si tartiib loo saadaaliyo tan labaadna waxa weeye baarlamaanka oo aad moodid nidaamkii hore oo dawladii hore oo baarlamaanka 200 xildhibaan ku dhow ku leh oo rabta si un inay uga soo muuqato iyo qoladan hadda joogta xukuumaddan hadda joogta oo iyaduna rabta de meesha inay because waa labada qof oo shaqada tooska labada hay'adood ay ka dhaxayso waxa weeye fulinta iyo sharci dejinta marka isku joogteynay ugu yaraan ma rabaan inay meeshaas kala kulmaan lafa bixiya ku dhex jira oo dholka u istaagay waatahay diini markaan dhinkaada u imaado waxaad la socotay muddo badanna goobjoog baad u ahayd weliba adigoo warbaahintii maxalliga ee Soomaaliya ka shaqeynaya waxaa jiray doorashooyin tan la mid ah sanad ka hor maxamed sheekh Cismaan Jawaari xidig baa ku tartamay la ogyahay doorashadii dhacday iyo sidii loo tartamay hadalladii la jeediyay iyo codadkii la kala helay inkastoo la isweydiin karayaa mid kasta gadaal ka taagnaayo soo bixinay laakiin markii hore loo eego baarlamaanadii ka horeeyay rag fara badan baa soo sharaxay oo kamid yahay dadka maanta sharaxan aadan maxamed nuur aadan madoobe oo Shariif Xasan Sheekh aadan aad ogeyd horay baarlamaanka isugu soo sharaxay inuu qabto baarlamaanka Soomaaliya doorashada inuu istoorto si dimuqraadi isaga dhaxdiisa isku dooranay muddo fog ay soo taxnayd laakiin markii maanta loo yimaado la barbar dhiga doorashooyinkii hore maxaa isbedeli kara isbedel badan hadda muuqanayo isbedelkaas dhinacyo badan ayuuna ka imaanaya waxa ka ah xukuumadda waxa ka go'an in ay gudoomiye baarlamaan oo la shaqeyn karo in halka laga soo saaro taana waxa ku daliila 2 bilood in ku dhow waxa socday ishaysad xukuumadda iyo gudoomiyihii hore baarlamaanka meesha xaaladdu ku dhamaatay inta badan waa la socotay marka doorashooyinka hore loo gali jiray waxay iska ahaayeen doorashooyin oo inta badan musharaxiinta imaan jireen laakiin hadda xildhibaanadii way kala qaybsameen xildhibaano oo horay la safnaa xukuumadda kana soo horjeeday gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaano kale oo diidanaa in gudoomiyaha baarlamaanka si fudud oo ku tago
oo micnaha difaacayay mar walbana adeegsanaya in sharciga uu muhiim yahay in la raaco xildhibaano kale waxaa jira oo horey oonan u dooran gudoomiyaha baarlamaanka oo xildhibaanada ka mid ah waxaa ogtahay gudoomiyaha baarlamaanka doorashadii uu kusoo baxay oo kal hore doorasho adag ay ahayd cabdirashiid xidigaa la tartamay oo weliba siyaasad badan iyo waxaa loo muujiyey arrin oo culayskeeda siyaasadeed iska leh oo la rabay in nidaamka Soomaaliya ay ku qaybsato jagooyinka sare xitaa in la bedelo ayaa la isku dayay tan kale sida aan la socono xubinta gudoonka baarlamaanka sida sharciga dastuurka ku qoran waxa isku sharxi kara qof walba oo Soomaali ah ka tirsan xildhibaan ah da 40 sano ka weyn marka istaada la yirashay 20 sano waa inuu ka weynaado marka waxa dhici karta marka in dad badan oo damac siyaasadeed leh inay halkan soo tartamaan doorashadan hadda la tartamayo way ka adag tahay doorashooyinkii hore maxay yeelay xildhibaanada hadda professor Maxamed Sheikh Jawaari gudoomiyihii hore baarlamaanka silay taageersanaa waxay rabaan inay soo saartaan gudoomiye baarlamaan ayaga inta badan danahooda ka shaqeynayo waxaa jira xildhibaano ka soo horjeeda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xildhibaanadaas waxay dadaal iyo cadaadis badan ama meel walba u tagayaan sidii u heli lahaayeen gudoomiye baarlamaan ayaga taageersan dhinaca kale markii la eego siyaasadda hadda waayadii ugu dambeeyay tan iyo doorashadii wixii ka dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Farmaajo waxaa soo baxday siyaasad isjiirjiir wax la yiraahdo macnaheedu noqon karo xukuumadda inta badan waxay rabtaa talada xukuumadda iyo go'aanadeeda cid ka hor timaado in meesha laga weexiyo ama laga leexiyo taasaa keenaysa marka in xukuumadda waxaysan raali ka ahayn qofkii ku dhaqaaqo wuxuu la kulmayaa caqabad adag taasoo keeni karta xitaa mararka qaar xilkiisa inuu ku waayo sida dhacday gudoomiyaha baarlamaanka waa tahay inkastoo inaan warbaahin aan xaqiijin karin in gudoomiyihii baarlamaanka ay golaha xukuumadda meesha ka saareen oo isaga iskii isku casilay haddana cabdiraxmaan doodadaan u imaan doonaa markaan u imaano xanaankan taagan iyo sida iminka wax loo dooranayo wasiirro fara badan ayaa iscasilaya qaarkood sheegaba inay iscasiliyeen waxaa ka mid ahaa wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga oo la ogyahay miisaaniyadda ama culayska ay leedahay wasaaraddaasi oo hoos imaanayaan ciidamadii difaaca dalka oo dhan marka la eegano kursigaasi isku soo casilay rajaynta laga qabaa mursal wasiirkaasi in uu ku soo baxa kursigaasi yaase la is oran karaa Salman aragtidaada inuu iscasilo way ku dhiirigeliyaan gadaal buu ka taagan yahay dastuuriyan waxaan noqon karaa gudoomiyaha baarlamaanka qof ka tirsan baarlamaanka markuu la doortana wuxuu iska casilayaa xilkii uu u hayay xisbigaas hadduu xisbi ku yimid dabcan taas waxaa ku jirta hadduu xukuumad ay wadatay hadduu qabiil ku socday waxaasoo dhan markaas iska casilaya soo qofka meesha waxaa laga sugaya waxa qof dhexdhexaad ah oo aan sida golaha wasiirka koowaad oo kale aan u talin xildhibaanada qofkan hadda meesha imaanaya ma ahan inuu u taliyo waa afhayeenkoodii hadalkay ku heshiiyaan buu ku matalaa si ka duwan golaha fulinta oo madaxweynaha baa wuxuu keenaa prime ministerkan wuxuu keenaa xubnihiisi laakiin ninkan baarlamankiibuu waxay ku heshiiyaan buu ku hagaa waa labada awoodoo lasoo doorto madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka labadaba wax ku yimaadaan gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku yimaada aqlabiyad oo xisbigiisu inuu hayo ama dee si kale oo gentleman's agreement reer magaalnimo kale sidaa Soomaaliya ka jirta marka hadda inuu iscasilo nin wasiirka gaashaandhigga oo jagooyinka ugu sareeya dawladda ku jira inuu isku casilo inuu gudoomiye baarlamaan dabcan isku halayn buu haystaa waxa laga yaabaa inuu haysto xataa haddii aad weydid wax laga yaabaa in dib lagu soo celiyo in isfahan noocaas uu jiro laakiin waxaas oo dhan xalaal ma noqonayaan sababtoo ah waxaa la rabaa laba hay-adood oo wada shaqayn ka dhaxaysa inay ahaadaan laakiin laba hay-adood oo ishoos imaada hadday noqdaan waddankan dimuqraasigiisana uma fiicna maamul wanaagiisana uma fiicna iyo anagoo ogday shaqooyinka laga filayo oo hadda waxaa maqanba waxaa noo dhisan hadda hay-addii fulinta iyo waxay noo dhisan hay-adda sharci dejinta hay-ad la awooda oo la siman baa weli ka maqan meesha hay-adda garsoorka oo u baahan labadan inay iskaashadaan sidaa darteed lagu soo dhiso u baahan weliba marka loo yimaado maxkamaddii dastuuriga ahayd iyo maxkamadda dastuuriga ay kasii horeeyaan guddiga adeega garsoorka oo u baahan ayaguna in la soo dhiso marka runtii inay islahaadaan oo loo yani anagu xataa inaan ku faraxno ma ahan
xukuumadda nin noo keenayso oo ninkaasaa meesha haysanaya daatimiis waxay noqonaysaa golihii shacabka waa la haystaa oo laantii fulintii baa bay hoos tagtay saas yacni waddankan ma anfacaysa waxaa anfacaysa waddankan waxaa weeye qofku isagoo ah wasiir xitaa sharci ahaan dood baa ka imaatay wasiirku inuu iscasilin miyaa mise inuusan iscasilin dabcan sharci ahaan waxay inta dadka sharci yaqaanada waxay leeyihiin inuu iscasile xataa khasab maaha laakiin dee sidaa hadday ku heshiiyeen oo shuruudaha lagu heshiiyey wixii baarlamaanku markasta ku heshiiye waa sharci iyadan unbaa la fulinaya sax inuu isagoo markuu iscasilo hadduu u tartamo meesha that means xukuumaddii way uga dhammaatay hay-ad kale buu qabsaday oo la awooda ama ugu sarreysa waddanku qabsaday marka uma malaynayo inay haddii laga raadiyo halkaas in yani uu u jilicsanaado oo u xagal daaciyo xukuumadda taas wareer ba'aanisa laakiin haddii sigan laga fiiriyo oo anigii ku bilaabay hadalko haddii xisbi aan ogeyn oo soo socda uu raba inuu sidaa ku imaado dabcan baarlamaanka weligeed xisbi baa haysan jiray deni marka loo yimaado dooda ah baarlamanka xubnaha laguma soo dooran axsaab ma muuqata aqlabiyad baarlamaan xisbi leh oo muuqanaysa maanta 4.5 baa lagu keenay baarlamankan waxaana muhiimaddu ay tahay baarlamanka dambe imaanaya baarlamankan bedelaya axsaab ku yimaadaan sida aragtida la saadaalinayo iyo rabitaanka Soomaalidaba uu maanta yahay laakiin marka loo eego wasiiradan iscasilaya waliba su'aal la mid ah Salmaan mid u yara dhow hadii aan ku weydiiyo ku saabsan wasiirka gaashaandhigga iscasilay maxay tahay sababaha keenaya in xubno wasiir ah oo jagooyin hayay hore loo dhaariyay Soomaalidana ay ku ogeyd inay u shaqeeyaan xildhibaan ahaa inay jagadaas ka soo casilaan ay tan ku soo laabtaan jagada gudoomiyaha baarlamaanka maxaa lagu arkay jagada gudoomiyaha baarlamaanka waa mid ka mid ah jagooyinka ugu muhiimsan sida sharciga uu qabanayo waxa waaye gudoomiyaha baarlamaanka ama golaha aqalka hoose haddoosan gudoomiye lahayn shaqadiisa iyo howlihiisa inay sii socdaan aad ay u adkaanaysaa sida hadda la arkay inta maalmihii isqabqabsiga iyo mashiinadii socday in laisku qabsaday xitaa xilalkii marka in baarlamaanka in gudoomiye loo helo waa muhiim wasiirka gaashaandhigoo kale markaa ka dhawaajisay keligiis maaha wasiir waxaa kaloo wasiir ah Saalim Cali Ibrow uu ku dhawaaqay in uu u taagan yahay xilka qabashada gudoomiyaha baarlamaanka waxaa kaloo kamid ah isla Maxamed Cabdiraxmaan Mursal oo isagana wasiirkii gaashaandhigga ah oo la og yahay wasaaraddaas culeyska ay leedahay waxaa kaloo oo xilkan isku soo taagay aadan maxamed nuur aadan madoobe oo hore usoo qabtay gudoomiyaha baarlamaanka xilligii oo jagada laga tuuray Shariif Xasan Sheekh Aadan oo la og yahay dhibaatada dhacday waagaasna gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waxaan ahaa maxamed muudey ayaan ahaa haddana gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka waa marka sheekooyinkaas marka dhinacaas loo fiiriyo way isku dhow yihiin waxaa kaloo oo kamid ah wasiir ku-xigeenkii boosada isgaarsiinta Ibrahim Yaro Isaaqa kamid ah isagana waa u taagan yahay jagadaas waxaa kaloo kamid ah Cabdicasiis lafta gareen oo isagana wasiir ku-xigeen ah maxamuud macalin yaxye oo nin culus ah isagana kamid yahay xildhibaanada oo kamid yahay Idris Cabdi Dhaqtarna oo ku jira marka intaas oo dhan markii la fiiriyo waxay intooda ay rabaan inay qabtaan gudoonka baarlamaanka marka gudoomiyaha baarlamaanka horta hal nina qaadan doono kuna guuleysan doono codkana xildhibaanada sida u siiyaan ayaa noqon doonaa laakiin xildhibaanada codka qaabka u siinayaan ayaa su'aal ka taagan tahay xildhibaanada waa og tahay hirdan badan ayaa dhexdooda ka dhex jiro loolan adag ayaa ka dhex jiro xildhibaanadana hal meel ma wada taageersano buuqii ka dhashtay gudoomiyaha baarlamaankii hore qaabka u soo casilay ilaa hadda weli wuu taagan yahay xildhibaanadana hadda heekalka iyo qaabka hadda u kala qaybsan yihiin mid walba ama koox walba waxay daneynaysaa gudoomiye baarlamaan dantooda ka shaqeynayo inuu meesha yimaado miyaana la doonaya gudoomiye baarlamaan oo danta Soomaalida ka shaqeynaya inta badan Soomaaliya hadii dhici lahayd danaha Soomaaliya laga shaqeyn lahaa isqabqabsigan ma dhici lahayn laguma qasbi lahayn in gudoomiye hore baarlamaanka inuu xilka meesha ka qaado waxaan la ogyahay golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorka markii la fiiriyo intoodaba way kala madax banaan yihiin laakiin hadda waxaa cadaadis la isku saaraya in golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta in la hoos keeno
taasna nidaamka dowladnimada caqabad badan ayuu ku noqon doonaa markaan waxaan is leeyahay gudoomiyaasha hadda iyo wasiirayaasha hadda iscasilay xilkan u tartamayo ujeedooyin badan ayaa laga leeyahay xildhibaanadan tirada badan ee hadda gudoomiyaha sheegay inay jagadaas u taagan yihiin waxaa laga yaabaa dadka ama shacabka Soomaaliyeed in la rabo in lagu qalqalgeliyo siyaasad ahaan oo la yiraahdo intaan qof ayaa tartamayso qofka naqanayo hadda waa la ogyahay laakiin ma shaaci karno laakiin hadda waa ognahay qofka naqanayo gudoomiyaha baarlamaanka sababtoo ah xildhibaanada markaad fiirisay qaabka ee hadhowtu la isku jijidan doono waa muuqdaa laakiin su'aal baan rabaa inaan adoo sii wata aan ku weydiiyo doodaadii hore waxaad ku jirtay doorashadan waxay iigu muuqanaysaa Cabdiraxmaan inay tahay mid danaysan waxaad sheegtay golaha xukuumadda cadaadis fara badan inay jawaari saareen jawaari meesha uu ka baxay mar kalena la doonayo gudoomiye baarlamaan oo la ologa ama ku dhow aragtidaada sidaas sheegaysa uu golaha xukuumadda ama ra'iisul wasaaruhu uu soo baxo hadda mar kale waxaad doodaadii aad ku soo dartay in ay idin muuqanaysaba cidda imaan karaysa marba haddii xubno ka mid ah golihii wasiirada is casileen baarlamaankii mudanayaal ka tirsanaa baarlamaan ku jirana ay si sharaxeen sidee baa loo oran karaa waa la saadaalin karaa aragtidaada cidda xukuumadda la safan ama ay socoto miyaanay muuqanin wasiiradan kala duwan ma dhammaantood bay xukuumaddu wada wadaa mase waxyaabo kala iman karaa barow sidaa la socoto baarlamaanka hadda xildhibaanada iyo wasiirada siyaasadda Soomaaliya waayadan ugu dambeysay wax qarsoon horta ma jiro wax walba banaanka yaaliin waayadan waxa lagu jaangooyaa social media iyo warbaahinta ayaa inta badan siyaasadda hor dhac ahaan ayay sii gudbiyaan waxaa muuqanayo hadda aniga sidaan qabo gudoonka baarlamaanka wuxuu noqon doonaa tartan adaga ka dhacayo doorashadan hore uu sheegay haddana ku celinaya waa mid daneysan waaye sida aan u leeyahayna waxa waaye xukuumaddii waxyaabihii ay la shaqeyn weeday oo ka soo horjoogsatay ama khilaafkii ka dhacay jawaari iyo xukuumaddii weli waa taagan yahay wax maanta la xaliyay oo la leeyahay waxaana la xaliyay ma muuqato tusaale haddii uu soo baxo gudoomiye baarlamaan oo dhici karto in xukuumadda dhinaceeda ka socdo gudoomiyahaas baarlamaan ma wuxuu noqon doonaa gudoomiye baarlamaan golay wasiirada ka tirsan ama xafiiska ra'iisul wasaaraha qaybka ah mise wuxuu noqon doonaa gudoomiye baarlamaan oo shaqeynayo shaqooyinka baarlamaanka la rabay inuu qabto barnaamijyadii sharci dejinta qabto xeerarka iyo qawaaniinta la rabay in la baas in baarlamaanka ansixiyo waxaas oo dhan inuu ka shaqeeyo mise wuxuu noqonayaa gudoomiye baarlamaan ku kaaban golaha xukuumadda marka arintaasi culeyskeeda iyo problemkeeda iyo dhibaatadeeda ay leedahay doorashadaani waa doorasho ka duunaa doonto doorashooyinka hore u dhacay watahay Salman haddii aan ku imaado dad fara badan oo Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan 27 sano ayuu wadankan hadba meel iyo marxalad soo taagnaa mar colaado sukaya lagu jiray Soomaalidu ay diriraysay kursiga la isku haystay mar fikro la isku dagaalamaya oo radiimeed iyo kooxo ka soo horjeeda la isku hayay mar siyaasadii ay soo ifbaxdo Soomaalida ay fahmaysa hanaankii dawladnimada hadba meel bay soo taagnayd inkastoo mooshinadu dadku ay saska qabeen laakiin haddii la helo gudoomiye baarlamaan oo baarlamaankii hogaaminaya iyo xukuumad isku fikir ah miyaana la oran karin Soomaali isfahantay oo jid wanaagsan jeexaysa muuqanaysa markaa okay su'aal wanaagsan laakiin haddaan wax yar ku laabto horta khilaafaadka iyo anti dhaweyd inkastoo xukuumaddu marna aysan dhihin annaga waxay haysanaa baarlamaanka laakiin haddana dhinaca kale dib laga fiiriyo ugu yaraan 65-70% xukuumaddu ay ka timid baarlamaanka oo sida la isku qasan yahay haddana sidaas oo ay tahay inkastoo ay xun tahay in khilaaf uu soo kala dhexgalo oo shaqooyinkii badnaayo horyaalay ay dhaawacayso haddana anigu waxay ila muuqatay dhinac horumar xagee bay horumar ka taal isweydiin kara anigu waxay ila muuqatay dhinac horumarka waxay ahayd sideedaba xukuumadda iyo baarlamaanku ayaga wax ka dhaxeeyaan systemka anagu haysano oo de parliamentarian xukuumadda iyo baarlamaanku ama hays qabsadaan ama isku dhagaan ayaga wax ka dhaxeeyaan waa dad wada shaqo ka wada dhaxayso laakiin awal anaga waxaan dhibkan haysay waxa ahayd xafiiska madaxweynaha oo intaba banaanka ah baa khilaaf ku jiray oo xafiiska wuxuu ku dhagan yahay prime ministerka marka runtii taasna ma ahayn dastuuriyan maba ahaba in madaxweynaha iyo baarlamaanku inay yani xukuumadda isugu imaadan maahan waxaa la rabay xukuumadda inay baarlamaanku inay xukuumadda kor joogtooyaan hadday ridaanna ayagu ay ridaan hadday rabaanna ayagu ay meesha ku hayaan xukuumaddana ay aqlabiyad ku joogto saas laakiin awal waxaan haystay waxay ahayd
madaxweyne iyo baarlaman iswato ninku keenay prime ministerka uu keenay cayrinay marka dhinaca hadii laga fiiriyo runtii in xukuumadda iyo baarlamanku ay isqabsadaan waa khilaaf horumar ah si dhanka marka laga fiiriyo because ayaga wax ka dhaxeeyay waa talaabo hore loo qaado dhinaca fahanka siyaasadda iyo wada shaqaynta aragtida saas aan anagu isleeyahay because waa dadkii ayagu wax ka dhaxeeyeen runtii laakiin waxa ay tiri xukuumad iyo baarlaman wada shaqeeya iyo gudoomiye baarlamaan iyo ra'iisul wasaare isfahansan oo meel u wada socda maxaa ii sheeg haddii in dadkaas intaas waxa runtii waxa ku jira qodobada baa ii sheeg dastuurka waxa ku jira xubin kasta oo baarlamanka ka tirsan asagoo oo niyadda ku haya kaalintiisa meesha laga soo doortay iyo deegaanka uu ka yimi haddana waxaa qasab waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay inuu matalo Soomaaliya oo dhan so xafiiq qof kastana waa saas oo xubin Soomaaliya qabta marka labadooda oo u wada shaqeynaya xukuumadda iyo baarlamanka u wada shaqeynaya danta ummadda Soomaaliyeed waa wax aan runtii la heli karin wax aad u wanaagsan way laakiin tan xoogaa shaki iyo tuunka abuuraysa waxa weeye hadii la is hoos yimaado ama baarlamanku uu niman ay noqdaan qowleysta oo aan waxba arki karin oo middan soo celi taas lama rabo laakiin haddii lagu wada shaqeeyo actually maba ah shaqada baarlamanka u taala haddaad aragtidba baabad la yaabaysaa 3 sano dhiman sidee ku dhamaystiri karaan baa is leedahay laano shaqo kasta oo wadankan laga qabanayo waxa iskale baarlamanka marka maba waqtiba uma hayaan muxuu yiri jiibta naga dhabqan soo ma dhin ayaga hadda waxa la rabay inay dhaan xukuumadda jiibta naga dhabqanina ma garanaysa oo ay hawshooda wataan haddii ay ku heshiiyaan mabaadi'a wadankan xaaladdu ku jiro xaalad xun weeye aan halkaas gaariga aan u wada rakaabsano aan meeshan ka bixino runtii waxa aad wanaagsan waa watahay diin marka loo yimaado baarlamanka qodiisa waa tii laba garab loo kala qaybsanaa garabna mooshinka uu watay garabna gudoomiye Jawaari uu la safnaa iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka Cawad waxa muuqanaya hadda baarlamankii xiisadii taagneed inay dhamaatay dad fara badan waxa ay saadaalinayeen in xildhibaano shalay kala aragtiyaha labada garab la kala safanaa in maanta isku aragti noqon karaan marka loo yimaado cidda si loo dooranayo cidda la dooranayo iyo aragtida lagu dooranayo intaba arrimahaas maanta ma muuqan karaan isla muuqdaan marka la fiiriyo qaabka xildhibaanadii ololaha ay wadaan si ay u doortaan gudoomiye baarlamaan oo noqonayo gudoomiye bedeli lahaa professor Jawaari xildhibaanadana hadda kooxihii isaystay oo ku dagaalamayay baarlamaanka dhexdiisa iyo dhibaatooyinkii dhacay oo la ogyahay bishii hore aan la soconay weli siday u taagan yihiin marka hore haddii qaarkood isku siyaasad ahaayeen oo kala duwanaayeen maanta waxaa laga yaabaa inay isugu yimaadaan oo hal hadaf ay raacaan oo mid walba dantiisa oo ka arko xildhibaanadii hore hadda gudoomiye Jawaari ee ka soo horjeeda qaarkood wax badan loo ballan qaaday haddii ahaan lahaayeen dhan dhaqaale haddii ahaan lahaayeen xilal iyo waxyaabo kala duwan marka nin si caadi ah u taageerayo ama ugu soo horjeeday gudoomiyaha baarlamaanka hore uu jirin xildhibaanadana nin walbana wuxuu rabaa inuu jago qabto oo ama wasiir noqdo ama dad oo saaxiibadiisa meel kala geysto waxa loo shaqeynaya inta badan dantooda ayaa inta xoog badan saaraa xildhibaanada waxa laga sugayay shaqooyin badan laga sugayay oo inay xeerarka iyo barnaamijyada sida uu saaxiibka u sheegay Soomaaliya qabada ka dhaxtaagan baarlamaanka aniga waxyaabaha waxa ka mid ah xildhibaan nin la soo doortay oo la ogyahay qaabka loo soo doortay nabaddoonada inay ergooyin soo xireen ergooyinkaas kotonikuga ay cod siiyeen xildhibaanka sida uu soo baxay uu matalayo ama deegaanka uu matalayo deegaankaas la rabay inuu arrimihiisa ka shaqeeyo ayaa haddana wuxuu qabanayaa haddana xil wasiirnimo iyo sidaa haddana usii qaadanaya aniga waxaan jeclaan lahaa haddii dhici lahayd in la kala saaro jagada wasiirnimada iyo jagada xildhibaannimada maxaa u leedahay xildhibaanka waa kala xisaabtamayo golaha xukuumadda xisaabtamayo laakiin aniga xildhibaan ah haddaan wasiir noqdo aniga see iskula xisaabtamayo watahay waan kusoo laaban doonaa aad baad umahadsan tahay waa dood fiican oo meesha imaan karta soomaalidana isweydiin karta cabdiraxmaan salman haddii aan dhinaca marka lasoo eego iyo doodan maanta taagan walwal badan baa waxaa laga muujinayaa hanaanka wax loo dooran karo dadka qaar waxay sii saadaalinayaan lacago fara badan baa imaan doona xildhibaanada lacaga la siin doonaa inkastoo aniga warbaahintu hubin inay suuragal tahay in lacag la bixiyo
haddana in iyadoo doorashadii guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya aqalka hoose loo tartamayo dadka qaar ay ka muujiyaan in uu yimaado arrin la xiriirta musuq maasuq oo soomaaliyana dalka uu yahay suuragal ma noqon kartaa sheekooyin noocaasi in cid lagu dooran karo والله runtii waa ayaan daro haddii xilka sidaan oo kale u muhiimsan oo la rabay in lagu xusho aqoon iyo karti iyo hufnaan in lagu xusho hadday tahay haddii la musuq maasuqo waxaan u malaynayaa waxaa weeye waa masiibo runtii in dee inta la dhaho in inta la soo hadal qaado musuq maasuq lagana aamuso taas laftirkeeda waxay ka mid tahay shaqooyinka baarlamaanka horyaala sababtoo waxaa la rabay inay si xilligaan kale annagu waxaan haysanay waxaa la rabay inaan haysano guddigii dabagalka musuq maasuqa la dagaalanka musuq maasuqa oo waxaa la rabay xildhibaankii qofkii murashixii lagu arko inuu arrimahaas oo kale xitaa lagu xamanayo mataqaan inta baaritaan cad lagu sameeyo in la kansalo musharaxnimadiisa musuq maasuqnimada waxaa la rabay inay ceeb noqoto sida madaxweynahan hadda jooga oo musuq maasuqa xasaasiyadda dheeraadka ka qaba aan loo doortay oo dadkuna ay u taageereen waa madaxweyne farmaajo sababta loo keenin waxay ahayd yacni soomaaliya la arkay inay tahay dee meel dee musuq maasuq oo yani marka runtii in haddii lacag lagu bixiyo waa masiibo runtii waxaanan yani bishaaro xunna waxaa noqon karta qofkii lacag kusoo baxay inuusan meel gaarin taas tijaabada innaga soo aragnay marka wax kastoo la musuq maasuqo oo xilka ugu weyn waddanka haddii la musuq maasuqo asaga laftirkiisa lacag baa ka baxday wuxuu u fakerayaa lacagta ka baxday horta bal inuu kabitaalka soo ceshado sow mooshinno badan buu keenayaa marka waxay noqonaysaa ishak jaantaar rogan bay noqonaysaa waxay haddaan ku laabto walaalkay in la kala saaro xubinno golaha wasiirada iyo xildhibaanada runtii issue ma ahan sababtoo ah golaha wasiirada marka la keenayo dhowr system baa jira marna system waxaa la technocrat baa lahaa oo farsamo yaqaano ah oo aan siyaasiyiin ahayn iyo golaha wasiirada oo laga keeno oo siyaasiyiin ah yani sida loo kala saaray waxaa weeye technocratka waxaa weeye qof farsamo yaqaan ah oo shaqada loogu talagalay inuu qabto tusaale ahaan waa wuxuu khibradiisu waxay tahay dhanka caafimaadka si wasaaradda caafimaadka loo dhiibo kama qaybgeli karo ololayaasha dowladda kama qaybgeli karo isku soo baxyada siyaasadeed siyaasi maahan iyo qof siyaasadda ku jira oo baarlamaanku waa nin siyaasi ah inta la keeno in loo dhiibo xil wasiirnimo loo dhiibo taas waa caadi sababtoo wadamada hadda dhaqaalahoodu aad ka horeeyo dee yurubta oo dhan wasiiradu waxay ku xildhibaanada marka annagu haddaan leenahay iskuma keeni karna labadii runtii yani ii sheeg annaga iyo dadnimo xumadeena waay laakiin systemkan parliamentarianka oo qofka si baarlamanka ku jira in laga dhigo wasiir u noqo adduunka dhan bay ka shaqaysaa waana wax ka shaqayn kara mana ahayn laakiin waxaa la isweydiinayaa soomaaliya oo dal kabanaya musuq maasuqa la sheegay kaalmaha hore dunida inuu ka soo galo xildhibaankii ahaa golaha xukuumadda inuu korjoogteeyo oo la shaqeeyo haddii isaga laga dhigo wasiir laga dhigo soomaaliya noqonaysa gar iyo gardarraba iyadoo u muuqanayaan haddana golihii wasiirada inuu difaacataa meeshaas kuma jirto farsamo waa aad bay u wanaagsan tahay waa fikir dadku isweydiin karaan laakiinse arrin kale oo meesha kusii jirta soomaaliya oo kale waa runta waddan kabanaya way dhaqaala yarna haysta ninka xildhibaanka wuxuu qaataa 4,000 dollar aan dhahno bishii tusaale ahaan waaye inuusan qaadan waa dhici karta marka 4,000 haddii wasiir laga dhigo waxaa laga yaabaa in 2,000 loogu daro ama 1,500 loogu daro soo dhaqaalihii baaba la yareynayaa laakiin wasiir haddaad keentid soomaaliyana waa taqaanaa waxay dhahaan waxaa weeye golaheeda wasiirada waxaa weeye xukuumad maroodi leeg elephant size waxay dhahaan xukuumad iska ballaaratay baan keena anagu mogtay marka haddaan keena 67 xildhibaan 67 wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle oo haddana aan dhaqaale kale aanan soo gelin dowladdina laga rabo inay ugu yaraan midkiiba 7,000 ay ku bixiso kharash aad u weyn waay marka sababtan xildhibaanada looga keenayo golaha wasiirada waxaa weeye in bal dhaqaalaha ku baxaya golaha wasiirada la yareeyo shaqadan ay socoto waa tahay waxaad soo hadal qaaday dood ahayd in xildhibaanadii shalay kala aragtida ahaa maanta qaarkood ay isku aragti noqon karaan iyadoo ay suuragal tahay in lacag iyo xilo loo ballan qaado arrinta musuq maasuqa laga hadlayo taa qudheeda miyaana ahayn haddii ay jiraanba sida hadalka loo dhigayo musuq maasuq meesha ku jira ay suuragal tahay hanaankii iyo hufnaantii doorashada inuu meel kale u weeciyo hadda baarlamaanka noogu jiro lasoo doortay faataxa kuma imaanin in faataxa loo mar lama dhihin ninkaanaan wadanaaho ninkaanana matalayo faataxadan u maraynaaho sida
xilka ha noogu qabto aad iyo aad. nin walba dadaal uu soo muujiyey qarash badanaa kasoo baxay tartan adag ay qaarkood soo galeen sida warbixinada qaar aan ku hayno waxaa waaye xildhibaanada qaar 500,000 ayay kusoo baxeen taasina waxay ka mid tahay oo u dhiganta lacagtee oo lacagta maraykanka waaye USA waaye aad iyo aad. markaad dhinacaas fiiriso waxaa waaye qaabkii kusoo baxeen iyo musuqmaasuqa iyo nidaamyadii iyo sadbursigoodii waxaa aad iyo aad micnaha inta badan aanan anaga hadda saadaal badan ka bixi karin inay shaqooyin badan oo hufan noo qabanayaan aad iyo aad. hadda xildhibaanada isku aragtida ah ee marka hore kala aragti doonaa ee hadda isku aragti noqda waxaa waaye sidee annaga inta aan fursadda aan leenahay iyo waxyaabaha aan qaban karno sidee ku heli karnaa waaye shacabku wax u danaynaya haba yaraateen ma jirto xildhibaanada qaar markay ka hadlayaan arrin taagan tusaale arrimaha heshiisyada hadda lala galo kale imaaraadka oo kale DP World arrinteeda oo kale xildhibaanada qaar waxaa lagu eedeynaya in ayaga markii hore arrintan soo karkariyeen marka hadda xildhibaanada hadda isku wadooyinka ama isku halka gaar isla raacayo waxaan rabaan gudoomiye baarlamaan oo la og yahay inay soo doortaan marka hore laba dhinacay kala taagnaayeen hadda waxaa laga yaabaa ilaa ay 3 qaybood inay u kala qaybsameen baarlamaanka xildhibaanadoodii dhinac walbana oo siyaasadda rabo inuu kontaroolo waa og tahay loonan adag ayaa xilka madaxweynaha marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la dooranayay waxaa dhacday doorasho adag ee ahayd madaxweynihiina waxaa loo doortay in shacabka Soomaaliyeed hami badan ay ka qabeen wax badan wanaag badan ka rajeynayna sidaas loo doortay dadkii la tartamay qaarkood musharaxiin ahaa qaarkood hadda xildhibaanka ee baarlamaanka ku jiraan qaarkoodna siyaasiyiin oo banaanka joogaan culayskooda ay leeyihiin mar walba waxay rabaan siyaasiyiinta inay saaxadda iyo hoolaha meesha ka socdaan soo galaan xilal iyo jagooyin ay qabtaan haddii waayaan guriga gadaal inay ka soo maraan dhagxaanta badan lagu soo tuurayaa marka shirarka jiraa'id iyo hadallada sidaas badan dhacayso waxyaabahaas oo dhan marka la fiiriyana waxaa waaye Soomaaliya systemkeeda waa parliamentary waaye weli waxaa lagu sii doortaa qaab 4.5 oo nidaam oo aad iyo aad u xun ah qaabka habbeeleedka ah sababtoo ah beel walba waxay ku keenaysaa ninkeeda ugu xun ayay soo horumarinaysaa dadka aqoon-yahanada ee la raba hadda inay baarlamaanka soo galaan xitaa awood ma helin marka waxaa leeyahay ninkan beesha ma soo difaacin beesha waxba uma soo qaban xilliga abaarta kama soo saarin waxaa lagugu dooranayaa saasaa dhacayso marka wax laisku tixgelinayo qaabka doorashooyinka Soomaaliya inta badan waxay ku salaysan tahay awooday ku salaysan tahay hadda beelaha sida isku diidiin xitaa marka qaar oo aad arki kartaa marka xildhibaanada hadda qaabka maalmaha soo socdo qaarkood way si kala furfuran doonaan qaarkoodna way isku imaan doonaan ilaa ay siyaasadda gudoomiyaha baarlamaanka laga dooranayo watahay dad fara badan waxay isweydiinayaan sawir noocee baa laga bixin karaa baarlamaanka iyo qaabka uu imin ku shaqeynay laakiin taa intaan u gelin anoo gabagabadii barnaamijka taagan Salman haddii aad xildhibaan ahaa lahayd maanta bulshada fara badan way ku daawanaysaa lagu yiraahdo aqalkii baarlamaanka ka tirsan tahay gudoomiyihii baarlamaanka sida hadda loogu tartamayo loo tartamayaa hogaamiye noocee oo baarlamaanka u dooran lahayd Soomaaliya maanta waa su'aal wanaagsan laakiin intaan u gudbo waxaan rabaa tablatooriyadii waaweyned oo baarlamaanka ku dhacday inaan uga dhaxo runtii baarlamaanka waxaa ku jira dad badan oo runtii aad u wanaagsan oo aqoon-yahano leh oo wadaaddo leh oo rag wadaniyiin leh marka runtii haddaan isku wada qabanno kulligood aan dhahno waa group musuqmaasuq wada yimid oo soo ma garanaysa xoogaa waa yara cadaalad xumo laakiinse kolley baarlamaankeenu waa Soomaaliya ujeedid waa baarlamaankii so qof xun qof wanaagsan wadan kala qaybsan oo ajnabi kala jiidanayo baarlamaanku waa sidaas baarlamaanku waxaa weeye sawir yar oo annaga naga mid ah moogta wuu namatalo runtii marka anuu hadda inuu namatalo inuu sidaa lagu matalo ama musuqmaasuq ha ahaado ama bahalka ha ahaado waa annaga qaabkan u samaysanahay Soomaalidii lagu ogaa sharafta iyo wanaagga iyo inay waxyaalahan dibadda ugu laabatid sinaanta iyo marka dib ugu laabatid gabayadiis saahid qamaan gabayga sinaan iyo markaad akhrisid iyo markaad isla aragtid waxaan hadda ay reer galbeed ku dhahaan good governance runtii annaga ugu horeynaba dawlad wanaag annaga ugu horeyn xeerkeenii reer miyiga ah marka Soomaalida la rabay inay dhinacaas ka joogto markaad aragtid hadda sida loo kala qaybsan yahay in baarlamaanka qaarkood aad loo xamanayo ay nagu dhex jiraan hore ha u socdaan
4.5 ka baxno su-aashiina haddaba imaato su-aashaadi haddaad u imaato su-aashaadi haddaan dib ugu soo laabto oo ah baarlaman haddaad baarlaman ku jiri lahayd maxaad dooran lahayd maxaad dooran runtii anu horta waxaan dooran lahaa qof aqoon-yahan ah oo weliba sharci yaqaan ah sababtu waxay tahay waxaan ogahay baarlamanku dhan sharci buu ku shaqeeyaa aad baad mahadsantahay gabagabadii adoo wax ka yar 30 second kasoo koobaya hogaamiyaha la doorto cabdiraxmaan sifee haddii lagu dhihi lahaa baarlamanka loo dooranayo maanta xog ogaalna aad u tahay soomaaliya maxaad kula talin lahayd baarlamanka in la doorto hogaamiye ama gudoomiye baarlamaan aqoon leh waxa uu ka shaqeynayo iyo howsha uu qabanayana cilmigeeda iyo sifaheeda kasoo dhalaali karo gudoomiye baarlamaan inuusan noqon mid inta badan kasoo horjeesta xukuumadda oo khilaaf abuuro halkaasina dhibaatooyin ka dhacaan aad ayaad u mahadsan tahay cabdiraxmaan diini iyo sidoo kale salmaan saciid oo barnaamijka bandhiga caawiga la qayb qaadanaya aad baan idinkugu mahad celinaya waqtigeena iyo weliba fursadda aadna siisan inta aad baad u mahadsantahay akhyaartiina la socotay intaasi waxaa ku dhan barnaamijkii bandhiga anigoo cabdilcasiis barrow ayaa idila socodsiinayay dhinaca farsamada Emmanuel ayuu ahaa halka dhinaca muqdawayaasha ama kaamirooyinka ay gacan iga siisay Maureen tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo